cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyadu aysan xaq u lahayn inay faragashaan siyaasadda arrimaha dibadda, difaaca, dhaqaalaha, jinsiyadaha iyo maaliyadda uu tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xaq u leedahay. waxaana hadalka wasiirka uu imaanaya xilli maamulka Puntland ay sheegeen in ay la safteen xulafada Sacuudiga isla markaana dowladda Qatar ay xiriirka u jareen taasi oo ah siyaasadda arrimaha dibadda. sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhankooda heshiisyo caalami oo dhanka difaaca galay waxaana xoosh uu sheegay in dhammaanba arrimahaas dastuurka federaalka Soomaaliya ee qabyada uu ka hor imaanayo. arrimaha dibadda waxa iska leh maamulkeeda ama maareynteeda ama xiriirinteeda waxa iska leh dowladda federaalka ah. sababtana waa sida soo socota qodobka 54 ee dastuurka wuxuu leeyahay awood qaybsiga ka dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waxaa loogu hadli doonaa dib u eegista dastuurka marka la gaaro oo hadda arrinta soo socota aan soo wadno. laakiin waxay leeyihiin wada hadalladaas lagama geli karo ama heshiis lagama furi karo afar walxood oo dowladda federaalka khaas u ah kaligeed. waxaa ka mid ah arrimaha dibadda, waxaa ka mid ah difaaca, waxaa ka mid ah siyaasadda dhaqaalaha, waxaa ka mid ah immigrationka iyo jinsiyadaha. afartaas lagama geli karo wada hadal lagama geli karo maxaa yeelay waxaa khaas u leh dowladda federaalka iska leh. maamul goboleedyadu door intee leeg ayay ku lahaan karaan marka? maamul goboleedyada door kuma laha afartaas kuma laha. hase yeeshee markay timaado arrimaha dibadda oo kaleeto haddii ay dhacdo arrin si xoog weyn ama mug weyn u khuseysa gobol in laga talageliyo gobolkaas ayaa habboon. taas laakiin waa wax si mug weyn u lewa laakiin arrimo dibad oo dhan waxaa iskale federaala iskale. dowladda Soomaaliya xaq intee leeg ayaa lagu leeyahay arrimaha muhiimka oo kale inay ka talageliso maamul goboleedyada gaar ahaan kuwa quseeyo kale? dabcan horta federaalka waxa waaye wuxuu u baahan yahay wada tashi inuu ku socdo si aan la isu qabsan iyo wuxuu u baahan yahay in waxyaalo badan in laga gaaraa xal siyaasadeed. hadda isqabqabsigaan iyo wuxuu u imaanaya kala maaha xal siyaasadeed aan laga gaarin waxyaalo badan oo ah awood qaybsigii, canshuurihii, dakhligii, khayraadkii, functionskii ama waxyaalihii la qabanaya tacliinta oo kaleeto, beeraha oo kaleeto, caafimaadka oo kale waxyaalahaas waxa laga geli doonaa wada hadal laga geli doonaa. marka sanadka soo socdaan rajeyn sanadkan rajeynina inay bilaabato. hanaanka federaalka Soomaaliya oo mid ka cusub ummadda Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba qodobadii dastuurka uu ka dhigayay u muuqdaan xilligan maamul goboleedyadu inay ku tumanayaan. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicays Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.